waa hagaag daawadayaal iminka qadka deegaanka Goryaale ee dhaca xadka ay wadaagaan gobolka Boqol, gobolka Gado iyo dowlad deegaanka waxaa si toos ah ugu jira nabadoon Cabdi Maxamed Ismaaciil oo kamid ah nabadoonada deegaankaas ayaa maalmihii la soo dhaafay sida wararka ay sheegayeen waxaa ka ogneed dhiilo codaadeed oo u dhaxaysay beelo deegaan ahaan halka wada dega nabadoon marka hore soo dhawow marka xigta maxay tahay ujeedka aad inoola soo xiriirtay walaal ujeedkan inuu soo xiriiray waxaa weeye beelo meesha wada dego ayaa baryahan dhiilo codaadeed ka taagnay in muddo ah marka qarni macnaha muddo ah oo ilaa 200 sano ana halkaas macnaha waa wada deganayn oo macnaha waxaa weeye waa deganayn anagu waa deganayn beeshan kaleetana waa beel macnaha nagula soo dhaadhiciyey oo hadda macnaha nala dul keenay oo dalkaanagii iyo beerahaanagii iyo ma garanaysaa waxaa weeye baqaarahaanagii iyo baraagahaanagii baa la dul keenay yaa dul keenood eedeynaysaan waxaa dul keenay dawladda ayaa dul keentay dawladda kililka Soomaalida Itoobiya ayaa dul keentay dawladda Askar ayaa dul keentay maxaad ku xaqiijin kartaan in maamulka dowlad deegaanka ciidamadan iyo hawshan aad sheegayso in ay idin dul keentay maxaad ku xaqiijin kartaan waxaan ku xaqiijin karaa macnaha beerahaanagii iyo baraagahaanagii dhaxdooda markinkooda ayaa macnaha tuulo looga sameeyey oo la dejiyey kama hadli kartaan wadanka dawlad ayaa iskala la yiri haddaad hadashaana waxaa weeye tallaabo sharci ah laydinka qaadayaa baa nagula yiri inta ka bacdi waxaa weeye markii halkaa la dejiyey ka bacdi haddana beerahaanagii ayaa waxay dhaheen iyagii halkaa la dejiyey beerahaanagii waxay dhaheen waa inaad ka kacdaan waa gartay hawshan aad sheegayso goorma ayay dhacday hawshan waxay dhacday bishan 7 ayay dhacday 5 beri ayay soo socotaa xiriir ma la sameyseen cid aad eedeynta u jeedinaysaan oo ah dowlad deegaanka madaxdeeda sarsare xiriir ma la sameyseen oo tabashadan aad qabtaan ma u gudbiseen kulley waxaa waaye degmada waa u gudbinay mas-uuliyiinteeda waa u gudbinay haddii aan u gudbinay waxaa waaye halkaasi annaga ayaa waxaa la dhahay beerihiini waa inaad ka kacdaan oo nimankan ku wareejisaan oo iskaga kacdaan beeraha waa kansalan yihiin badarkaa ku yaalana ma falan kartaan mana goosan kartaan waa tuma cidda oranaysa arrintaas waa ciidamada weye ciidamada kililka oo degmada waa gartay marka haddii macnaha beerihiina qofkii beerahaas lagu dhex arko oo shaksi ah amarkaasay dawladda bixisay inaan beeraha la dhex tegi karin bay bixisay dawladdu ciddii lagu dhex arkana 500,000 oo bir baa la ganaaxayaa waana la qabanayaa madaxana xabad baa lagaga dhufanayaa baa nagula dhahay waa gartay marka arrinta meesha ka dhacday arrintaas oon kula soo xiriirnay oon rabno saxaafadda inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed aan maqashiino cadaalad darrada nagula sameeyey dabadfal baa nagula sameeyey deegaankii aan 200 sano deganayn baa nagala qaadayaa ciidamo diriis dawladeed qabaa nagula dumaadayaa waa gartay arrimahan markii ay dhaceen go-aanadaas la sheegay ciidamadu ay idiin gaareen ma ula noqoteen maamulkii iyo gobolkii aad ka tirsanaydeen ma ula noqoteen oo ma ku celiseen oo ma u sheegteen oo ma wargeliseen waa kula noqonay maamulka gobolka afdheer Hargeysa hogaankiisa iyo gudoomiyaha degmada Baarey intaba arrintaas waa kula noqonay waa naga diideen arrintaas macnaha iyaga ayaa soo saxiixayba arrinkan iyaga soo saxiixayba cidda soo saxiixday oo arrinkan ka dambaysa iyaga waa gartay haddii arrintaa ay dhacday dowlad deegaanka caasimadeedu waa Jigjiga maamulkii halka ayuu fadhiyaa maamul dabaqado kala duwan lehna deegaanka waa uu ka jiraa dabaqadihii kala duwanaa xiriir ma la sameyseen waxaa kaloo jira walaal waxaa kaloo jira oo rabaa inaan kuu sheego waxaa weeye 21 macnaha santar anda tuulo ayaa laga xukumaa degmada Baarey marka waxaa waaye intaas waa xor annaga meesha
waxaa laga sameeyey ciidan in macnaha nagula gumaado had iyo jeer uuna joogo nimankan uu noo xagaldaaciyo nimankan uu waxaa weeye hadulaadiin dhabarka uunoo dariiskaas nagula gumaado xarun ciidan ayaa dhexdaanada laga sameeyey ciidankaasoo loola dan leeyahay nimankan duuftaarka nugaha in ay macnaha noo xadidoogaan. waa gartay xalka maxaad u aragtaan? xalka waxaan u aragnaa waxaan u sheegaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida cagtar waxaan u sheegaynaa ciidankan isagaa xukumo annaga dad shacab ah oo etoobiyaan ah oo wadankan u dhashay baan nahay dakhli baan bixinaa dhaqaalaan bixinaa dhaqaalaha aan bixino iyo dakhliga aan bixino iyo lacagta laga qaada geela anaga iyo ariga annaga iyo beeraha annaga ayaa ciidanka dariisna loogu soo gadaa mushaarna loo siiyaa in marka annaga ay nagu gumaadaan oo annaga xaqa annaga iyo dalka annaga iyo dadka annaga ay ku laayaan oo beeraha annaga ku qaataan oo cid kaleeto oo dulsaara ay siiyaan taasi isagaan dusha ka saarayna isagaan dusha ka saarayna de inuu tallaabo sharciga ka qabto anagu dad waxaan nahay ilaahay diin shacaba oo rayada oo waxaa weeye hoggaansan weliba waxaan nahay beel maslaxada ku fiican oo waxaa weeye xagga maslaxada iyo masaalaxada annaga intan Soomaaliya 90 iyo 10 Soomaaliya burburkeediya maanta dhexdooda beel maslaxaan nahay maliin beelo qalaadeed maliin beelo macnaha maslaxadiida maliin marka waxaa weeye dadkaanagi iyo dunyadaanagi iyo beerahaanagi dariis baa lagu gumaadayaa isagaana ka dambeeyo dadkan iyo ciidankan iyo dadkana isagaa xukumo jililkana isagaa mas-uulka culayskaas waxaan ka qabganaynaa dee ummadaas bilaadii Soomaaliyeed ee meeshaas dhibaatadaas loogu geystay Etoobiyaanka jililka shanaad in wax laga qabto degmada gobolka Afdheer gaar ahaan degmada Baari gaar ahaan dalka Xeelgo gaar ahaan qabalaha Ooman. aad buu u mahadsan yahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa nabadoon Cabdi Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka Goryaale oo la soo xiriiray telefishinka Som News TV uguna warbixinayay dhiilo colaadeed oo deegaanka ka taagan.